waxa ciidankeenu ay qabteen muddadii 2 sano ahayda la soo dhaafay ee aadka u weyn. waxaad xoreyseen in ka badan 80 goobood oo degmooyin iyo tuulooyin iyo marino muhiim ah ay ka mid yihiin ayaad xoreyseen. dhulkaas aad xoreyseen waxay xukuumaddu ka hirgelisay adeegyadii aasaasiga ahaa sida waxbarashada iyo caafimaadka. waxaad ogtihiin meelaha qaarkood oy muddo dheer haysteen in sanadka haddii lasoo dhaafay sanad daraasadeedkii in imtixaanaadkii shahaadiga ahaa lagu qabtay oo laga soo qaaday ayaad ogtihiin. waxaad la wareegteen goobo fara badan ood kala wareegteen ciidamada ADMIS oo ilaa iyo 25 la igu sheegay. waxaadna bedesheen 7,000 oo askari oo ADMIS soo baxday. wax fudud ma aha. waxaad hoos u dhigteen weeraradii tooska ahaa ee cadowga ay samayn jireen. waxaa runtii wax lagu faanaa intaas oo goobood oo lala wareegay oo in fara badan oo caalamka ka mid ah ama dadka Soomaaliyeedba qaar ka mid ah ay ka qabeen shaki in la hayn karo in la hayay oo aynan jirin meel ay dib u qabsadeen. taasina waxay ku tusinaysaa sida ciidankeena la isugu hadlayn karo iyo awoodda ay leeyihiin iyo geesinimadooda ayay ku tusinaysaa. waxaan leeyahay marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel fiican ayuu joogaa. waxaana rajaynayaa sanad kasta iyo bil kasta iyo maalin walba iyo saacad walba wuxuu goynayaa shawd, wuxuuna horay buuna u socdaa. muddo koobanna ilaahay idankiis ciidankeenu wuxuu ku soo noqon doonaa sidii uu ahaan jiray waayo oo weliba ka casrisan. waxaad la socotaan hadda markii la sheegay aan arkaynay oo ciidankeena maraya diyaaradaha dulba banayay. dadka Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah maalintaas waxay lahayn diyaaradahan waa fake ma lihin. waa la iska sheeganayaa wax ka jira ma leh. laakiin hadda waxaan filayaa inay rumeeyeen inaan inagu leenahay oo xoolo Soomaaliyeed lagu soo gaday oo askari Soomaaliyeed wado sharaf iyo karaama inoo tahay.